wafdigan ballaaran oo culimo ah isla markaana uu hogaaminayay Sheekh Maxamed Macalin Abshir ayaa gaaray magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo qaar ka mid ah deegaanada hoostaga magaaladaasi. ujeedka wafdiga culimada ay u gaareen deegaanka ayaa ahayd sidii tayeen iyo horumarin ballaaran loogu samayn lahaa madaariistii iyo macaahidii horey looga hirgeliyey deegaanada ay culimada booqdeen. culimada ayaa muddadii ay joogeen goobaha kormeerka ay ku sameeyeen waxa ay tageen xarumaha waxbarashada ee deegaanadaasi laga hirgeliyey, waxaana muxaadarooyin diini ah iyo wacyigelin ballaaran ay u jeediyeen dadka ku sugan goobaha ay booqashada ugu tageen culimada. madaariista iyo macaahidda deegaanadaasi ayaa ah xilligan kuwa laga barto qur'aanka kariimka, culumta sharciga ah iyo tan maadiga oo ay ku diirsadeen dadka deegaanka, iyadoo hirgelinta xarumahaasina dadku ay sheegeen in lagu soo beegay xilli baahi weyn loo qabay. sidii aad noogu timaadeen inaanan ahayn waad u jeedaan, safar muuqdaa waa su'aal madoonaa la yidhi. annagu waa idin soo dhowaynaynaa waxbarashada iyo waxqabadka aan u baahannahay oo aan helay ayaan idinku soo dhaweynaynaa una baahannahay. marka ugu horreysa ilaahay baa mahad iska leh. midda labaad waxaa mahadsan intii ilaahay waxbarashada iyo wanaagga fahansiiyo. annaga ilmahan annaga aabbayaashoodii hooyayaashoodii ah qarashka aan ku bixinno qarash ka tiro badan baa culammadaan ku bixisa. dhulkaa waa naloo gabay 70 weyn, saas waa 70 jidkaasu haystaa waa naloo gabay 9 sano ka horaa la gabay. rag baa lacagtooda ka baxshay xamar jooga. waxaa naloo dhisay marka hore jeegad yar oo wax ku barbaray jirnay, waa nala ka bedelay. waxaa naloo dhisay madrasadan weyna naloo dhisay, hantidooda geliyeen. masaajidkaas waa naloo dhisay, waxaa loogu talagalay ilmuhu inay ku cibaadaystaan oo dadku ku cibaadaysto. deegaanada ay gaareen culimada ayaa waxaa ka mid ah Wasiil, Budbud, Ceeldibir, Xero Dhagaxley, Galinsoor iyo Ceel Guula, kuwaasoo dhammaantood ka mid ah gobolka Mudug. waxaana qayb ka ahaa safarka culimada Daahir Macalin Yuusuf, Sheekh Deeq Ciise, Maxamuud Maxamed Warsame iyo Sheekh Axmed Fuje. dadaalka inaad laba laabtaan marka dambe oo idin imaanayno Xero Dhagaxley waxaan rabnaa insha Allah intaan afar jibaarkeed inaan aragno. aad baa u mahadsantihiin, khayr badan Allah idin siiyo, Allah idin xifdiyo. diinka waa la idinku dhibaya, waa la idin caayaya, waa la idin aflagaadeynaya, wasakh oo dhan baa la idinka sheegaya, been oo dhan baa la idinka sheegaya. laakiin qofkii ilaahay taageerayo baytiisa noqotaa ogaada. qofkii ilaahay taageerayo oo ilaahay raalli ka yahay oo xaq wada unbaa ilaahay u helinaya. haddaan xaq wadno oo khayr aan wadno ilaahay waa noo helinaya. waan aragna madaaristeenna kuwa Wasiil ku yaalla, kuwa Ceeldibir ku yaalla, kuwa Budbud ku yaalla, kuwa ku yaalla Galinsoor. waxa weeyaan dadkii nacaayay oo natuuriyeynaya oo nafta noo keenay ayaa ilmahoodu maanta ay dhigtaan. dib dambay ka ogaadeen waxa aan sheegayn inay sax tahay. sheekha ila jooga Sheekh Deeq Ciise waa Galinsoor ninka hayo maamulo weeye oo madrasada weyn ka furay weeye. 150 arday ka badan baa dhigata. 150 arday ka badan baa dhigata oo dadkii isku yimid. waana waxaan soo marnaa iyadoo hal arday laga heli karin oo la diidayo leeyahay ufay la leeyahay. maxaa marka la rabaa in lagu sabra khayrkaas aad haysataan ayaa la doonaya. ilmihiinna idinkaa dhalay, mas-uuliyadoodana idinkaa leh. qof meel kale ka soo hadlaya ama wixii berri gaaraa aysan wax mushkilaa ku hayn oo aysan damqinayn yuusan u talin ee qofka dhibkiisa uu u yaalaha u taliyo. intaasaan dhihi lahaa wixii wara sheekha koobay, laakiin waxa loo baahan yahay ilmahaaga mas-uuliyadooda wixii ka halaabaa adiga ayay kuu yaalaan ee uma yaalaan nin asagu dana gooniya kale ama macno gooniya kale. baraarujintii dhammaan waxaa noo dhameeyey Sheekh Maxamed Macalin Abshir. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nagu anfaco, kuwii qaatana ilaahay ha naga dhigo. barnaamijka wuxuu walba ku saabsanaa in is baraarujiyo. marka baraarujintuna waxaa ku soo dhammaanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. qofku intuu nool yahay inuu ahaado qof taqwo leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa. ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisana bacda tawxiid qofku markuu qof muslim yahay ka bacdi waxaa ugu weyn salaada. wax ilaahay lagu caabudo oo salaad ka weyn ma jiraan.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. safarka culimada ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay guul iyagoona soo ogaaday baahiyaha weyn ee loo qabo in la furo xarumo cusub oo maadooyinka diinta islaamka lagu baranayo. intii ay joogeen culimadu waxa ay tartan u sameeyeen ardayda wax ka barata madaarista iyo macaahidda deegaanada laga hirgeliyey iyagoona abaalmarino qiimo badan guddoonsiiyey ardayda kaalimaha hore ka galay tartankaasi. ugu dambayntii sheekh maxamed macalin abshir oo ah hogaamiyaha wafdiga ballaaran ee culimada gaaray magaalada Galkacyo iyo deegaanada hoostaga ayaa baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah. alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. walaalayaal waxaan baaq u dirayaa walaalaha u istaagay khayr badan allaha siiyo mar walbana u taagan inay ka qayb qaataan horumarinta waxbarashada deegaamada la xiriira magaalada Gaalkacyo oo culimadu horay waxa weeyaan ay uga fureen macaahid waxbarasho mid maadi ah iyo mid diiniya labadaba. kadib culimadu markay arkeen meeshaas aqoon darrada iyo jahliga yaala ilaahay khayr badan ha siiyo dadkii u istaagay inay maalkooda ku bixiyaan waxa weeyaan inay dadkooda iyo deegaankooda horumariyaan gaar ahaan jaaliyadda deegaanadaas u dhalatay oo waxa weeyaan meelaha macaahiddaas laga furay sida mataqaana Galinsoor, Budbud, Xeero Dhagaxley, Ceel Dibir, Wisil ilaa Cilguula iyo meelaha kale oo dhiman oo ay tahay khayrkaas in lagu baahiyo walaalihii u istaagay oo gacan ka geystay horay waxaan leenahay khayr badan Allah idin siiyo ilaa 500 oo arday oo waxa weeyaan maadiya diin labadaba la barahayo oo ilaahay dartiisa loo barahayo oo waxa weeyaan culimadu ay u taagan yihiin mar walba inay khayrkaas waxa weeyaan dadka ku booriyaan oo ay booqdaan oo ay waxa weeyaan soo ogaadaan wadcigu sidoo habba uu yahay waxa weeyaan wax ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga mahadiyo weeye ribix aakhiro oo la shinsanaayana weeye nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam khayrun naasi anfa'uhum linnaas dadka waxa ugu khayr badan uguna fiican kuwa dadka anfaca oo waxa weeyaan khayrka gaarsiiya marka waxa weeyaan idinkana waxa la idinka rabaa inaad ku didaashaan dadkii hore u bixiyana ilaahay subxaanahu wa ta'ala badal khayr qaba Allah siiyo dadka dambana waxaan leenahay Soomaali weyn iyo gaar ahaan jaaliyadda deegaanka u dhalatay waxa u istaagtaan inaad caawisaan oo garab istaagtaan dadkaas firiga wax lagu barahayo oo lacag la'aanta ah macallimiintaas waxa weeyaan mushaarkooda iyo waxa weeyaan ka qayb qaadashada iyo horumarinta maxaa yeelay waa sadaqa jaariya waa cilmun yuntafacu bihi waxa weeyaan masaajid la dhisahayo iyo madaaris qur'aan iyo waxa weeyaan khayrkaas oo cilmiga oo la faafinahayo intaas weeyaan waxa qaradkuna uu yahay waxa weeyaan in loo baxsado yawma laa yanfacu maalun walaa banuun illa man ata allaha biqalbin saliim maalintaas qiyaamaha ah qofku inuu baxsado sadaqadaas uu la baxahayo oo hooskeeda uu harsado adduunyadana ilaahay balaayadeeda uga xijaabo wixiisana ilaahay u barakeeyo wajazaakumullahu khayran sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.